guud ahaan ajaanibta ku nool waddanka Norway ayaa sanadkii tagay ee 2024 waxa ay dalalkooda u direen adduun lacageed oo gaaraya 2.8 bilyan oo koronka Norwejiga ah. lacagtan ayay dadkooda iyo eheladooda iyo asxaabtooda ugu direen si ay ugu caawiyaan taageero dhaqaalena ay ugu noqoto. Soomaalida ayaa kaalinta koowaad kaga jirta dadka lacagaha ka dira Norway, waxa ayna Soomaalida dalkooda u direen adduun lacageed oo gaaraya 362 milyan oo koronka Norwejiga ah. waxaa ku soo xiga oo kaalinta labaad soo galay Afghanistan, kuwa oo iyaguna dalkooda u diray 353 milyan oo koronka Norwejiga ah. kaalinta saddexaad waxaa soo galay Bakistaaniyiinta oo ah dadka ugu badan ee ku nool dalka Norway, waxa ayna iyagu dalkooda u direen adduun lacageed oo gaaraya 239 milyan oo koronka Norwejiga ah. Romaaniyiinta ayaa iyaguna dalkooda u diray 166 milyan oo koronka Norwejiga ah, halka Turkidu ay u direen 128 milyan oo koronka Norwejiga ah. dadka Eritrea ayaa iyaguna dalkooda u diray adduun lacageed oo gaaraya 115 milyan oo koronka Norwejiga ah, halka Filibiiniyiinta ay dalkooda u direen 71 milyan oo koronka Norwejiga ah. si taalamida Kenyaanka ayaa dalkooda u diray 70 milyan oo koronka Norwejiga ah, halka Thailand ay dalkooda u direen 67 milyan oo koronka Norwejiga ah. Morocco oo kaalinta 10aad ku jirto ayaa iyaguna dalkooda u diray 57 milyan oo koronka Norwejiga ah. lacagahan ayaa la sheegay in si private ay ugu dirayeen dadkooda iyo eheladooda iyo asxaabtooda si ay ugu caawiyaan arrimaha xagga nolosha iyo horumarinta. bangiga caalamiga ah ee horumarinta beeraha IFAD ayaa sheegay in taageeradan lacageed ee ay dirayaan ajaanibta ku dhaqan dalka Norway ay kaalin weyn ka qaadato dadkooda ku dhaqan dalalka ay ka yimaadeen. adduunka lacageed ay Soomaalida ku nool qurbaha guud ahaan sanadka 2024 ay dalkooda u direen ayaa la sheegay in uu gaarayo 1.7 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, taa oo u dhiganto ku dhawaad 15% dakhliga guud ee dalka Soomaaliya. halka ay wararka ugu doorkaroon maanta idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.